xukuumadda Somaliland ayaa la sheegay inay dowladda Itoobiya ku soo wargelisay in si dhaqso ah loo soo magacaabayo qunsulkii dowladda Itoobiya u fadhiyay Hargeysa oo ay jagadiisu bannaanayd dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay. Wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo waraysi gaar ah uu la yeeshay wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu mar kale meesha ka saaray oo uu fikir shakhsi ah ku tilmaamay hadal wargeyska The Reporter hore ay u siiyeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha dibadda iyo warfaafinta iyo mas'uuliyiin kale oo walaac ka muujiyey siyaasadda dowladda Itoobiya ee gobolka Geeska Afrika. wasiirku waxa uu sheegay in haatan sida ugu dhaqsaha badan dowladda Itoobiya ay ka wada xidhiidheen oo loogu soo magacaabi doono qunsulkii magaalada Hargeysa fadhiyay. waxaanu isagoo arrimahani ka hadlaya uu yidhi waxaanu wadaagnaa xuduud laakiin weli ma aragno wax sidaas muhiim u ah oo saamaynaya xidhiidhkayaga qotada dheer. Somaliland ma aaminsana in Itoobiya ay dhinac martay, waxba kama qabno heshiiska saddex geesoodka ee Itoobiya ay la saxeexatay Soomaaliya iyo Eritrea, umana yeedhinayna Itoobiya inay Soomaaliya xidhiidh wanaagsan la yeelato ama in aanay la yeelan. waxaanu xidhiidh dhinac kasta oo wanaagsan ah la leenahay Itoobiya, kamana cabanayno heshiiska saddex geesoodka ah. warbaahintu waxa ay bidhaaminaysaa in banaanshiyaha jagada qunsulka guud ee Itoobiya ee Somaliland fadhiyay ay sababtiisu arrintaasi la xidhiidho. waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo in xidhiidhkayaga diblomaasiyadeed uu yahay mid adag, waxaana naloo sheegay in diblomaasigan dhaqsa loo soo magacaabi doono. waxaannu arrintan kaga wada xidhiidhnay diblomaasi ahaan iyo dariiqyo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa sidaasi u sheegay wargeyska The Reporter, waxaanu sidoo kale si qoto dheer uga hadlay xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya, isagoo meesha ka saaray walaaci ay muujiyeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi oo wargeyska hore ula hadlay.